madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga xaakimka wasiirada madaxa dhaqameedka culimada ganacsatada haweenweynaha dhammaan iyo saxaafadda iyo staafka madaxweynaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wax badan oo la yiraahdo ma hadhin aad baan insha Allah taala ugu farxaansanahay horumarka ay sameysay dawladdeena wada jiriya wax qabad alxamdulillaah rabbil caalamiin maarayaha ayaa ka marxaati kacay in muddadii 9 bilood aynu joognay hadda mashruucii shanaad ay wado xukuumaddu alxamdulillaah rabbil caalamiin xukuumadahan waxaan ku soo gunaanadayaa inay annaga naga go'an tahay siday ummaddu u walaaloobi lahaayeen wada jir u noqon lahaayeen wax u qabsan lahaayeen qabyaaladda iyo qoqobka ay iskaga dayn lahaayeen wada horumarna aan u jeesan lahayn waayo intaas oo dhan oo dad maanta isku timid waxay cadeynaysaa inay dadku walaala yihiin isku mid yihiin ay wax wada qabsanayaan alxamdulillaah rabbil caalamiin xukuumadda hadda talada haysa way ka go'an tahay horumar in aan horumar sameeyaan meel kasta oo ay baahi ka jirto ay wax ka qabtaan intii ay qaban karaan waxa halkan laga xusay ganacsade ama nin muxsina oo $700,000 ugu deeqay ma garanayno laakiin khayr Allah siiyo waanu ducaynaynaa waa wax lagu daydo inuu sameeyo shirkadaha kale ee ka qayb qaateen insha Allah sida Telesom oo iyaguna ka qayb qaato tilqayban hay'adana waanu mahad celinaynaa han noqdo hadafkeenu wada jir iyo wax qabad han noqdo hadafkeenu inay noqono dad walaala oo iskaashada xumahana iska reeba wanaagana isfara